wiil da'yar oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa qaab macmala waxa uu u sameeyey gaadiidka loo adeegsado goobaha dagaalka. faafahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay Safiyo Cismaan Cabdulle. hindisaha iyo hal abuurka waa mid uu eebbe ku uumo qofka insaanka ah, balse waxaa la isdheeryahay dadaalka iyo firfircoonida. kani waa taangi macmal ah oo laga sameeyay biro kala duwan oo la isu keenay. markaad aragto taangi waxaa kugu soo dhacaya inuu yahay hubka ugu khatarsan ee loo adeegsado furumaha hore ee dagaalka. fikirkan ayaa ah mid ugub ku ah dhammaan dalka. dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana ah kuwa waayihii dambe la soo baxayay ama hindisay hal abuuryo ku cajabgelinaya. hadba mid bir walba oo maanta bir aan dibadda ka keensaday ma jirto. biraha dhan dalka laga wada helaa. waa biro dhowr meelood aan ka soo kala qaaday, laakiin wax dibad iga yimid ma leh. waa waxyaabo aniga aan isku keenay. Cabdullaahi Maxamed Cali Nageeye waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho. waxa uu la yimid hal abuur cusub oo ka duwan kuwii hore loo sameyn jiray. waxa uu la soo maray marxalado kala duwan. taangigan macmalka ah hase yeeshee waxa uu soo gaarsiiyey heerkan, balse rajadiisa ayaa ah sidii ugu shaqaysiin lahaa taangigan uu u soo dhabar adeegay. fikirkiisana uu u noqon lahaa mid dunida oo dhami ka gadma. fikradan markaan arkay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurka badan leh, haddana hal abuurkooda la gambanahaya, ayaan waxaan isiri dhalinyarada Soomaaliyeed sidee waxyaabaha ay isleeyihiin alle waxa waay waxyaabahaas oo kale waa qatar ay uga gambanahayaan, sidee adigu ugu hormari kartaa una tusi kartaa caalamka. insha Allah taala waxaan hadda ku tala jiraa haddii Ilaahay sanooyinka soo socda inaan diyaarado helicopter haddii Ilaahay qadka igu jira. diyaaradaas helicopterada aan rabaa haddii Ilaahay adiga insha Allah taala inaan soo saari doono. ma ahan hal abuurka uu sameeyay Cabdullaahi taangigan, balse waxa uu ii sheegay sidoo kale in uu sameeyay baaskiil ku dhex soconaya badda. hadda baaskiil badeedkaas markaan sameeyay waxaa dhacday in laga soo sameeyay koobi oo loo dirsaday dalka Masar, oo Masar ay dad ganacsatada ka keeneen. haddaba sheekada cajiibka ah ee meesha ku jirta ayaa ah in 3 calan oo ka kala turjumaya kan Soomaaliya, Jabuuti iyo Turkiga uu hareerta ugu dhajiyay taangiga macmalka ah ee uu sameeyay. ujeedada ayaan weydiiyay uu ugu dhajiyay iyo waxyaabaha uu ka damacsanaa. calanka Jabuuti run ahaantii waa calanka ku dhagan gacanteeda midigta. Jabuuti run ahaantii ma ahan dal maanta aaminsan niyad ahaan dad aaminsan inay Soomaali ay iskala weeyhiin. midka dhexda waa midkii dalkaygi waa u dhashay. ka kaleeto oo dalka Turkiga ahina waa ogtihiin maanta dalka Turkiga waxa xaqiiqo ah dawladaha islaamka inaysan maanta awood kaleeto ay ku faanaan. dawladaha islaamku waa dawladda ugu awoodda badanaa isleeyahay maanta dalka Turkiga. sida idin muuqato waxaan saaranahay taangi macmal ah oo hal abuurkiisa lahaa wiil Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho, balse durba waxaa kugu soo dhacaya markii aad aragto taangigan in loo adeegsado goobaha dagaalka. Safiyo Cismaan Cabdulle, warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho.